walaalaha Soomaaliyeed la joogtaan waa idin salaamay waxaan si kal iyo laabo idin kaga codsanayaa fariintan hadii ay ku soo gaarto gaarsi walaal Soomaaliyeed oo darisa ama qaraaba ama asxaaba oo qaadka cuno walaalkayga qaadka cuno soo dhawow waxaan Rabbi subhanahu wa ta'ala kaaga rajaynayaa caafimaad cibaado suuban iyo cimri dheer inkastoo realistically Rabbi waxba kuma aha laakiin inta kastoo ay adag tahay inta aad qaadka cunayso inaad intaas heshid haddana waa ku ducaynaynaa walaalkay waxaan ayaanahan dhan maqlayseen Xasan Sheekh Maxamuud baa hore la kulmay dawladii waa heshiiyeen diyaarada la kicinaya heshiis baa la saxeexday waxba la kala bedelinaya ki Ethiopia imaanaya kana imaanaya xaqaas ii dhig masaladaas waxa la isku haysto si simple oo aad fahmi kartid hadii aan kugu sheego waxa la isku haystaa waa biilka carruurtaada waa in reerkaagu cunugaaga yarkaahi uu gaajo ku saxdo cunug Ethiopiana ama Kenyana dharag inta ku saxdo school fee iyo jaamacad fiican laga bixiyo waxa la isku haystaa waa gabar Ethiopiana ama Kenyana inay marwar noqoto oo reer stable ay guur qurux badan iyo gogol qurux badan dhigato gabadhaaduna xaaskaaguna ay dariska maalin walba ku dhaxdo walaalay carruurtii waa iga gaajaysanay odagiina waa maqan yahay $5 oo deynaysi. Can you imagine embarrassment iyo qabjabka gabadhaas ku dhaca maalin walba adigu gursato lagu siiyay? Can you imagine carruurtaada gaajada ku saxanaysa iyo carruurta kale oo dhargiisa oo adigu ka qayb qaadanayso dharagtooda kuwaagana aad ka qayb qaadanayso gaajadooda? Intaas waxa ku dheer walaal waxa heshiisyada loo galaya loo kala saxanaya kalluun baa la bedelinaya leeyahay waa in ilkaha laga daadiyo saagaana laga reebo ilaahayna laga fogeeyo waxay rabaan dawladuhu kala saxidaan laakiin cid kugu qasbi karta ma jirto inaad cunto Rabbi subhanahu wa ta'ala baan ku baryeynaa in ilaahay ka midabeeyo go'aan kale adiga iska leh dhaxda xiro tasho think about it it's never too late ana cuni jiray waan iska daayay kumanaan kalena daayay and yes what one can do another can do anu waxaan sameeyay adiguna waa sameyn kartaa guuleyso salaam alaykum